guddida gacanta ku haysa dib u dhiska masjidka weyn ee deegaanka Habarheshay oo warbaahinta maanta kula hadashay magaalada Burco ayaa ummadda muxsinka ugu baaqday inay ka soo qayb qaataan dib u dhis lagu sameeyo masjidka Habarheshay oo muddo 60 sano ah lagu tukanayay isagoo leban iyo dhoobo ka samaysan balse ay maanta garowsadeen inay dib u dumiyaan isla markaana dib loo dhiso. Culimada iyo guddida gacanta ku haysa masjidkani ayaa sheegay inay hayaan qaybo kamid ah lacagtii lagu qabiyo tari lahaa masjidka weyn ee deegaanka Habarheshay inta hadhayna ay marti uga yihiin ummadda khayrka jecel adduunyada dacaladeeda ku kala maqan waxaana kamid ah hadaladoodii anigoo imaamkii iyo khadiibkii masjidka waxaanu u bandhigaynaa oo ka codsanaynaa qof kasta oo maqaalka ama muuqaalkaasi uu gaadho inuu soo caawiyo masjidka maxaa yeelay masjid qofka dhisa ayaa rasuulkeenu inoo cadeeyay in guri isagana jannada looga dhisayo masjidkaasoo ah masjid ilaa 50 sanadood ka hor la dhisay dabadeedna gaboobay leban ka koobnaa markaa dhooba ku dhisnaa way socotaa hawshiisu waxay maraysaa sabada sare ama liitarka sare halka in kor hore looga qaado ayaa la doonayaa. waxaan u soo bandhigaynaa ummadda muxsiniinta ah inay ka qayb qaataan hawsha masjidka waxaanu ballan qaadaynaa wax kasta ummadda muxsiniinta ay soo gaarsiiso inaanu siday tahay masjidka uga shaqeyno taasoo ah annaguna aanu ajar kaga helayno ilaahay hortiis ilaahayna nagula xisaabtamayo maalinta qiyaame marka waxaanu ummadda walaalaha iyaga muxsiniinta u soo jeedinaynaa arinta inay wax nagala qabtaan masjidka la dhisaan maadaama masjidku ahaa masjid muddo dheer 60 sanadood in ka badan soo dhisnaa oo ahaa ciidii dhoobada ahayd kadibna iminka uu soo gaadhay heeru dumo marka waxaanu ku tashanay inaanu masjidkii dhisno cagaf baanu gelinay dhulka laga soo bilaabay annagoo ah guddidii masjidka Habarheshay waday in aanu u faafino ummadda muslimiinta ah meel kasto ay joogaanba masjidkii aanu dhisanay oo aanu ku howlanay maalmahanba masjidku wuxuu ahaa markii hore masjidka sida ay hore u sheegeen qolada hore masjidka bulukeedka ah ee aan dhulka ka qaadnay cagafka gelinay marka waxaanu doonaynaa walaaladeeda muslimiinta meel kasto ay joogaanba halka ay joogto waxa soo gaarsiiyay dad mutawiciin iyo deegaanka wixii ka dhilmay masjidkaas oo qiyaasta uu caanood sheegay iyo meelo ku dhow lagu tilmaamayo in ay walaalaha iyaga muslimiinta ah meel kasto ay joogaanba ay soo gaarsiiyaan oo ugu soo tabarucaan saynu ognahay masjidku deegaankiisu waa mid ballaaran oo ilaa iyo muslim oo dhan ah sidaa darteed ciidii danaynaysa ee masjidka ka qayb qaadanaysa waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan iyo taleefanka qaaraanka masjidku uu ku dhacayo misal jaamaca maxay dhahdaa Habarheshay oo isagana shaashada ku arki doontaan waa masjid weyn sidaa daraadeed dadka muxsiniinta ah qofka dar ilaahay u bixiyaa yusama muxsiniin waxaanu idin rajaynaynaa inaad masjidkuna wuxuu marayaa foodiya bagaarihii buu marayaa meel wanaagsan buu marayaa waxaanu idinka rajaynaynaa deena gacanna siisaan waxaanu ballan idinka qaadaynaa guddidaasi waa guddi la soo xulay ammaanadeedu adag tahay gaarsiinaysa waxa la soo baxdaan meeshii loogu talay gaarsiinaysa taas baanu idinka ballan qaadaynaa anigoo ah guddoomiyihii iyo guddidiiba idinkana waxaan nooga ballan qaadaan qabyadaa idin muuqata inaad dhamaystirtaan ayaa Laciga Ducaali Bukhari telefishinka Ariel Burco.